madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada nabad sugidda iyo bilayska qaranka ayaa habeennimadii xalay ahayd waxa uu booqday cisbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho oo lagu dabiibayo dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. nasiib daro 6 markii emergency room ee la keenay oo garaab ahay qadar ka bacdi waa dhinteen. waxaa jiray 6 kaleetood oo markii la dhaawacooda la baaray ay ahaayeen dhaawac fudud inay naga tageen. intii ka soo hartay 40 kale oo soo hartay 34 soddonkaas iyo 4taas waan seexinay. caawana soo booqday waa ka filaynay inuu noo yimaado waliba xataa habeen madaxweyne noo yimaado caawa noogu horeyso هذا هو ما فهمت مدحوينه si wanaagsan oo dhaawacyadii u soo arkay bukaanadii iyo dadkoodina moraalkooda aad buu kor ugu kiciyay. waxaana noo ballan qaaday haddii jiraan dhaawacyo oo aan meeshaan lagu daaweyn karin in dibadda loo qaado oo daaweyntooda la madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu caafimaad u rajeeyay bukaanada iminka lagu dabiibayo cisbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho. waxa uuna u ballan qaaday bukaanada xaaladahooda caafimaad wax looga qaban kari waayay gudaha dalka Soomaaliya. waxa uuna tilmaamay in dawladda uu garwadeenka ka yahay ay u raadinayso baxnaano caafimaad oo dhanka dibadda ah. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa luuqad adag kula hadlay dad uu ku tilmaamay inay ka soo horjeedaan xasilooni waarta oo ka hergasha geyiga Soomaaliya. taasi waxa weeye cambaareen kaliya ma aha, waxaan oran karaa waxa weeye waa weerar qaawan oo waxashnimo ah oo loo geystay shacabka Soomaaliyeed oo aan kala socnayn oo caruur iyo duqey iyo dumar iyo ragba leh waxay galabsadeenna aysan jirin. qoladaas horarka ah waxay cadow ku yihiin shacabka Soomaaliyeed waana aragtaan. maaha waxay raadsanayaan dawlad iyo dad dawlad u shaqeeya ma aha, waxay raadsanayaan waa annagoo idil. waxaa loo baahan yahay hal meel inaan uga soo wada jeesano oo aan iska dhicinno ka dawlad ahaan. annagu waxaan leenahay door, shacabkana waxaan ka rabnaa iyagana door kale inay hawshan ka galaan. doorka shacabka wuxuu yahay maanta waxa dhintay waa caruurteenna waay, waa gabdhaheennii, waa ciroolaheennii waxa maanta meeshaas ku dhintay. waxa ku dhaawacan oo hadda xanuun la jiifana waa caruurteennii iyaguna iyo gabdhaheennii. madaxweynihii qaranka anigoo waxaan ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno, kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku yiraahdaa aan wax gaarsiino, si joogto ah wax u gaarsiino. hantida burburtayna insha Allah haddii ay Ilaahay dhaqaalina soo galiyana aan caawino oo aan dib ula dhisno wixii burburay. qofka noo soo sheegay informationka ama nasoo wacyigeliyo noo sheega meeshii wax ka jiraan iyo baabuurtaas, waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax. maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaataysan. qof walba oo information noo keena baabuurtaas qarxayo qaraxa wada intuusan qarxin, waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgudkaasaan sheegay inaan siino. qofkaasna Ilaahay ajirna waa ka siin, maxaa yeele wuxuu badbaadinayaa dadkiisii oo la leynayo iyo badbaadinayaa. shacabkana waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information ah. haddii dadkaas horarka ah ee la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan. laamaha amniga ah waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan, hawshaanna u istaagaan si ummadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan. taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka General Gafow ayaa dhankiisa goobta ka hadlay. bismillaahir rahmaanir rahiim. mudane madaxweyne waa mahadsantahay.
dagaal dheeraad la soo sameeyay shacabkuna aad iyo hadda noola shaqeeyaan telefoona furan la yiraahdo 991 saacad walba ay soo wixi karaan ay soo sheegi karaan qof allaalo qofkii kuwa dadka bastoolada habeenku dil ah soo qabto amba keen 10 kun daruuri asagii bastoolada soo keeno hadduu soo sheegna shukuru leeyahay xasan kaahiye Somali News Muqdisho